dhegaystayaal sheekadani waa sheeko dhaba oo dhacday sheekadan ayaa waxa ay dulucdeedu tahay dhegaystayaal in adeegsiga aaladda internetku ay leedahay khasaare baan haddii si khaldan loo adeegsado sheekadina dhegaystayaal waxay u dhacday sida tan waa gabadh aad u daayar oo barata internetka iyo aaladda lagu wada xidhiidho ee facebooka iyo oday aan guri marnaba yegleelin weligii oo qurbaha ku weynaaday waxaana sheekadu u dhacday sida tan aadamaha dunida ku nool ayaa waxay ku kulmaan dhegaystayaal dhaqanka iyo diinta qarniyadan dambe aaladda casriga ee dunida ayaa waxay ka dhigtay tuulo mid ah sanadkii 2009 bishiisii afraad shanteedii ayay sheekadani ku dhacday oday looran jiray Jibriil oo ku noolaa waddanka England maalin maalmaha ka mid ah ayaa isagoo isticmaalaya aaladda facebooka ayuu si kadisa waxa uu soo galay qof in yar kadib wuxuu xaqiiqsaday inay la hadlayso gabadhan oo magaceeda u sheegtay Farax waxaana uu sheegtay inay degan tahay magaalada Hargeysa gabadhan oo ay daadeedu tahay 16 jir arintaasi oo ahayd mid odaygan aad farxad gelisa isaga magaciisa waa bedelay isla markaana wuxuu jeclaystay inuu ugu soo babac dhigo magacu dhigmada yaraanteeda waxaana uu sheegay in la yiraahdo Hanad daadiisuna ay tahay 25 jir hanti iyo adduun badan haysto iyadoo daada odayga markana ay tahay 46 jir markii cabaar la kaftamayay waxaa la isku afkartay in haasaawe la wadaago ilaa 2 toddobaad ayaa waxay go'aan ku qaadatay Farax inay ka dalbato inuu sawirkiisa Facebook u soo geliyo odaygii Jibriil haa ee Hanadka haliyeyga sheeganayay ayaa tala ku cadaatay waxaana uu ku tashaday inuu bal arintan uu dhinacuun u fardaamiyo sidoo uu maareyn lahaa sawirkaasi ay dalbatay Farax dabadeed maxaa dhacay odaygii wuxuu tala hadbadhan u rogabo wuxuu u tagay isla markaana uu ka dalbaday sawir xusuusa inaanu dhalay oday ay saaxiibiyiin oo lagu tiriyo dhalinyarta ugu xaragada badan deriskooda ama bajaarkooda iyadoo uu ilaahay inankaasi ku manaystay qurux waxaana markaasi ka soo qaatay isla markaana uu ka codsaday inuu sawir xusuusa u galo si uu mar walba ugu soo xasuusto wuxuuna markaasi soo qaatay sawirkii isla markiiba wuxuu u diray Farax farxad iyo riyaaq ayay ugu dhamacaadsatay sawirkii waxaana uu qaadan waa ku noqotay Farax iyadoo Jibriil uu u ballan qaaday inuu dhawaan dhowrka bilood ee soo socda imaan doono magaalada Hargeysa isla markaasina uu dhoofin doono hadalladaas waxay yidiidilo weyn geliyeen mustaqbalkii Farax iyadoo isla hadlaysa waxay tiri waxaan helay nolol jiif oo jaqa geesta kale waxa aan liidan rajada weyn ee Jibriil ku aadan gabadha dhalinyarada ee sida fudud uu ku helay waxaana farxad darteed uga habsaami jiray goobta shaqada soo tuurtay warakii walaadhi tognaydo igu turuqday aashaqa turtay warakii walaadhi tognaydo igu turuqday aashaqa inantii Farax ahayd waxaa dhacday inay isku ilowday facebooka xataa markay tagto goobta waxbarashada waxa qalbigeeda ku soo dhacayay ereyada macmacaan isla markaana xambaarsan jacaylka ee qalbigeeda dhalaalinayay makaan weeye inda ku siiyay wada jacaylkii muddo bilah kadib wuxuu u sheegay inuu imaan doono toddobaadada soo socda odaygu wuxuu hilmaansanaa in sawirka uu xusuusta ah looga daba imaan karo odaygii Jibriil ahaa oo ku mashquulsan facebooka isla markaasna khadka ay ugu jirto oo ay la hadlayso Farax ayaa waxa si lama filaana ugu soo galay wiilkii baasaboorka u noqday soo dhaweyn kadib waa la is salaamay waa la iska canqaaday wiilkan waxa la yiraahdaa Axmed dabadeed farxadii uu dhex tamashlaynayay awgeed ayuu odaygii isagoo hilmaansan wuxuu u dhaqaaqay dhanka iyo kijadii wuxuuna ku yiri isi fadhi koobka ayaan shaah inoogu soo karinayaa Axmed waa ku caajisay waxa uu damcay inuu isticmaalo isla markaana uu taataabto kombiyuutarkii
waxaana si la yaab leh isagoo u baadhbaadhaya kombiyuutarka u arkay sawirkiisa oo dhex yaala facebooka si degdeg ayuu wuxuu u qortay ciwaankii kadib shaahii ayaa u la cabay waxaana u dhaqaajiyay dhankii iyo gurigooda wuxuuna markiiba galay facebooki uu ciwaankiisa soo qortay dhowr cisho kadib ayaa la aqbalay muran adag ayaa dhex maray markii isku dayay inuu ka dhaadhiciyo arrintan tan gabadha wuxuuna u sheegay magaciisa iyo halka uu degan yahay iyadoo taasi ay caddayn u noqotay haddana ma suuro gelin kalgacaylkan sida dhadada ugu dhacay qalbiga farax waxaana ay dheg u dhigi weyday orahaan ka soo yeedhaya axmed iyadoo u arkaysay inuu yahay saddexeeyo burburinaya jacaylkeeda waxay arrimuhu sidaasi ku socdaanba wuxuu u sheegay inuu sawirkan uu isaga yahay waxay isla qaateen haddii arrimaha uu sheegaya ay dhabobaan ay kala ogaan karto oo kaliya marka uu yimaado dalka maalin ayaa ka hadhsan inuu yimaado magaalada Hargeysa odaygii wuxuu dignin uga dhigay isla markaana waa feef u sii dhiibtay gabadhii wuxuuna ku yiri ha ka noqonin go'aankaaga gabadhii farxad iyadoo ku jirta ayay u sheegtay inaanay marnaba ka noqonaynin go'aankeeda maryo aad u qurux badan ayay ku soo labisatay waxaana ay diyaar u tahay inay hor tagto wiilka aadka u daada yar ee ay sugaysay 10 subaxnimo ayuu ka soo degay airportka magaalada Hargeysa waxa isna uga soo horeeyay wiilkii Axmed oo doonayay inuu badbaadiyo mustaqbal xumaanta soo food saartay gabadhan iyo khiyaamada uu geystay odaygu waxaana hor yimid waxaanay filayn oo ah oday awowgeed leeg waxaanay aan fariil iyo afkalaqaad iyo dhidid iyo ilmo aan hakad lahayn ay qabsatay inantii faraxayd waxayadoo murugo iyo iscilkaanbi la lidata ay kula dhaqaaqday dhanka iyo gurigoodii iyadoo soo xiratay qol aadna ay u ilmeynayso ayaa waxay ku tashatay inay isweydiiso qofka ay jeclaatay waxaanay nafteeda ku qancisay inuu badbaadin karo oo kaliya ninkii Axmed ahaa sidii ay u hanan lahayd iyo inay falowgeeda gasho sidii ay qalbigiisa u soo jiidan lahayd odaygii Jibriil ha wuxuu baadigoob u galay sidii uu ogaan lahaa haybta ay tahay farax isla markaana wuxuu u diray hablo uu wuxuu yahay waxaanay ogaadeen cidda inantu u dhalatay iyo cidda ay tahay wuxuuna meel la fadhiistay odaygii Jibriil ha odaygii dhalay farax dabadeed maxaa dhacay odaygii Jibriil ha wuxuu meel la fadhiistay odaygii dhalay farax odayga farax dhalay waa oday muqayil isla markaana dadka qaadka xadaafka cuna waxaana isku arkeen meel maqaaxiya Jibriil sidii tilmaanta loogu sheegay odaygu uu doonayay ayuu markiiba helay maqaaxida waxa fadhiya dhowr oday oo ilkala oo qaadka tunta isla markaana mid waliba uu haysto mooye iyo tib markii uu Jibriil maqaaxidii fadhiistay isla markaana uu la soo baxay qaadkii uu sitay wuxuu nin waliba markii la mirqaamay la yimi sheeko nin waliba waxbuu ku halqabsaday camirmay mirqaankii laakiin odayga Jibriil ha mirqaanku uma muuqdo sababtoo isagoo ma helin wuxuu raadinayo wali sidii loo qayilayay ayaa waxa soo galay maqaaxidii wiil baalashla kadib wuxuu ku yiri ma idin soo baalasheeya kabaha dhamaantood uma aanay jawaabin odaygii Jibriil ha mooyaane wuxuu ku yiri aniga iyo labada nin ee igu xiga u soo baalashee labada nin ee ku xiga waa odaygii dhalay farax iyo nin ay saaxiib yihiin kadib sheekadu ha sii socoto kolba nin sheekeeyo markii dambe waxay soo gaadhay odaygii Jibriil ha dabadeedna wuxuu yiri isugaan lacagta baalashkan bixiye war ma haysaane aan idin warrama dabadeed wuxuu uga sheekeeyay 30 sanadood ee uu qurbaha ku noolaa dhibaatooyinkii qabsaday odaygii Jibriil ha sidii uu ragga ugu sheekeynayay ayaa qaadkii ka dhamaaday kadib wuxuu u diray qaad kale isla markaana islaantii maqaaxida haysatay ayuu ka dalbaday inay qaad kale soo siiso ragga si aanay marnaba hakadu gelin sheekadu habeenkaasi farax aabaheed wuxuu ahaa habeen aad u farxad badan isla markaana ahaa habeenkii ugu mirqaanka badnaa ee soo mara odayga
geesta kale inantii farax ahayd waxay raadisay inankii axmed ahaa halka uu ku soo degay isla markaasina waxay ogaatay inuu ku soo degay xaafad ay qaraabo yihiin iyadoo ka fikiraysa bal sidii ay xaafadaasi u geli lahayd iyo qaabkii ay u abbaari lahayd ayaa nasiibku wuxuu la kulansiiyey isagoo dukaan wax ka iibsanaya way faraxday kadib waa lays hor yimi layse saraan kadib xog waraysi iyo sheeko ayaa dhex martay iyadoo mararka qaar ay dhacaysay sidoo ugu sheekeynaya axmed inay baxdo iyadoo ku maqan wejigiisa uu ilaahay quruxda ku manaystay isla markaana niyadda kale wejigaa quruxda leh ayaa qalbigaygii lagu xaday sidoo kale waxay ku daalqabsatay kadib iyadoo isilowsan isla markaana qalbigeeda xidhsan kari waayey jacaylka ay u qabto muuqaalkiisa ayaa waxay si lama filaana u tidhi ubax baan sidaa kula soo ordee madigaa aqbali axmed oo ahaa wiil waayo aragnimo iyo xeeldheeri isku darsaday wuxuu markii ay ku tidhi waan ku jeclahay si taxadir ku jiro uu ku yidhi hoodoy deqdo waxaad tahay dawitaan hoodoy deqdo waxaad tahay dawitaan dumarkaba ka eegtee cashaqeena daadi dumarkaba ka eegtee cashaqeena daadi kadib wuxuu sii kaxeeyey dhanka iyo xaafadoodii lambaradii la isweydaarsay ballan wuxuu ku qaaday axmed inuu dhibaatada ay wejigiisa dartii u martay inuu ugu bedeli doono nolol aad u farxad badan wuxuuna dhegaha si dadban ugu riday inuu guursan doono inta aanu dibadda u noqon gabadhii farxahayd aad uma farxin keliyase way dhoolla caddaysay sababtoo ah waxay og tahay dhibtii ay ka soo martay farxad ayaa habeenkaasi lagu kala hoyday dhan kastaana wuxuu la dheelmaday farxad aanu hore u arki jirin tasawirkaaga kusoo noqnoqdo qalbigu manastee gacalo nafaqee subaxii markuu waagu baryey ayaa odaygii jibriil ahaa maqaaxidiisii fadhiistay mise waxaaba ku soo maray odaygii farax dhalay kadib wuxuu ku yidhi jibriil soo fadhiiso aynu shaah wada cabne kadib shaahii la wada cab sheekana lagu dhex dar iyagoo isku sheekaysanaya ayaa odaygii jibriil ahaa ayuu wuxuu ku yidhi maanta aniga ayaad ii casuumantihiin adigiiyo saaxiibka waxaadna ii raacaysaan gurigaygii halkaasi oo aan ku soo degay kadib markii uu maalin walba guriga la isugu imaan jiray isla markaana lagu wada qayili jiray saaxiibtinimadiina ay sii xoogaysatay u dhaxaysay odayga jibriil iyo odaygii dhalay farax iyana waxaa taabagal iyo tisqaad noqday jacaylkii farax iyo axmed odaygii dhalay farax ayaa wuxuu maalmaha ka mida ku yidhi odaygii ay saaxiibada ahaayeen ee jibriil adigu waxaad tahay nin fiican horta nin yahow miyaanad reer iyo carruur lahayn wuxuuna ugu jawaabay maya waayo anigu inta badan waxaan ku mashquulsanaa shaqo oo haweenba isma haleeli jireen kadib wuxuu ku yidhi ma guursanaysaa haddii aad iminka gabadh hesho haa ayuu yidhi haddii aan helo mid yar oo waysada ii biyeysa odaygii farax dhalay wuxuu niyadda iska yidhi talow xidid ma la noqotaa ninkan kadib wuxuu ku yidhi ka waran
haddii aan hablahayga anigu mid ku siiyo. Odaygii Jibriilha ayaa aad u farxay, waanu isku dardarsamay. Kadib wuxuu ku yidhi, tee ayaad isiinaysaa hablahaaga? Haddana wuxuu ugu halceliyey, miyaad kala garanaysaa hablahayga? Wuxuuna ugu jawaabay, maya. Kadib wuxuu ku yidhi, labada hablood ee hablahayga ugu degan waa laba, waxaana la kala idhaahdaa Farax iyo Haweeya. Kadib adigu tee ayaad dooran lahayd? Tee ayaad kugu daraa? Markaasi ayuu ugu jawaabay odaygii Jibriilha, waan kaa guddoomay, waxaanan dooranayaa inanta aad Farax igu sheegtay. waxaanu intaasi raaciyay armay diidaa inaan guursado. Kadib wuxuu ku yidhi, inanta duciya habaar kala dooro, miduun ayay qaadanaysaa. halkaa ha ka warwarin ee soo diyaar garow, aniga ayaa dhalay inantayda, amarkayga mooye amar kale kuma soconayso. Habeenkii gurigii ayaa la isugu yimi. Odaygii